كم حضرين بلعبنا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد موضوعا لن يرضى وذا أكتهين وموضوع آد أي ورقبان والد بدن تانا أي كانتي meeshan aynu ku noolahay iyo wadcigeeda oo wax maaha wax cusub maaha waxaanu ilaahay ka baryayna subxaanahu wa tacaala inuu nagu wada astiro dhammaanteen waxaana inaga ka mas-uula waalid ahaan anigan hadlaya idinkan dhageysanayaba horta inagu marka hore mas-uuliyadeena aynu qaadano oo inagu aynu isa saarno arrinkan midhihiisana inagunbaa iskale hadduu fiican yahay hadduu xun yahayba inaga ina dul saaran yihiin وإلهي وحو الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كو إلهي آمنيو قو أنفسكم وأهليكم نارا نفتين إيا أهل كينبا كبت بادية نارتا نفتين إيا أهل كينبا كبت بادية نارتا تاسو naartaas oo waquuduha annaasu walxijaara shidaalkeedu uu yahay dad iyo dhagaxaan calayha malaa'ikatun ghilaadun shidaad waxaana dul jooga oo shaqaalo ka ah oo ka dhex shaqeeya malaa'ig ghilaadun shidaad aad u qalqallafsan aadna u adag laa yacsuuna allaha maa amarahum ilaahay wuxuu amrana haba yaraatee aan ku caasiyaynin wayafcaluuna maa yu'maruun waxaa la amrana sidooda u fulinaya malaa'igta noocaas ah ayaa ilaahay subxana wa tacaala u abuuray inay meesha noocaas ah ee sidaa khatarta waa inay ka shaqeeyaan aayaddan markay soo degtay xadiidkana wuxuu ku jiraa fi kitaabi tafsiir sunan tirmidi markay aayaddani soo degtay asxaabta nebiga u yimaadeen calayhi salaatu wassalaam yaa rasuul allah qofkayo naftiisa ma badbaadin karo sideen u badbaadinaynaa markaa ehelkayaga iyo ubadkayaga waa ilahi wuxuu leeyay quu anfusakum wa ahliikum naara haddaan naftayda aan badbaadin karaynin sidee baan u badbaadinayaa ehelkaygii iyo ubadkaygii nabigii suubanaa wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam waxaad amraysaa wixii ilaahay ku amray waxaanad ka reebaysaa wixii ilaahay kaa reebay taa weeyaan badbaadintooda adiga xilka ku saaran waa kaa mas-uuliyadda ina saaran marka inaga ee inaga saaran ubadkeenna ama kuwa yaryar ha noqdaan ama dhalinyaradaba ha noqdaane waa inaynu wax u sheegno inaynu wixii ilaahay amray aynu amarno wixii ilaahay ka reebay aynu ka reebno xilka aynu ka soo baxno
ilaahayna waafajiyo xil sahlan maaha waliba dhulkeeni markaynu joognay taxadiyaad ama challenges badani may jirin dad wada muslimiin ah haddii wax dhaqan xumaa ilmahaagu uu sameeyo qofka u horeeye ka soo horbaxa uu canaananayo oo waryaa maxaa waxa u samaynaysaa miyaanad xishoonaynin mujtamac aan aqbalaynin xumaanta oo wanaagsan marka in badan oo ka mid ah tarbiyadda waxa inaga caawin jiray mujtamacii aynu ku noolayn society aynu ku noolayn laakiin maanta waxaanu dhex keennay ubadkeennii iyo maxasteennii waxaynu dhex keennay gaalo ilaahay u naxariistay sheekh maxamed axmed boqolsoon ayaa wuxuu yidhi kelimad cajiib ah aad baan ula yaabanaa berigaa wuxuu yidhi ilmo gaal ku neefsaday ayaa rajo ka sugaysaan inana 8 saacadood iyo ka badan baynu u geynaa markaasna weliba hadda waxaynu ugu darnay tuition si aynu u dhisno Englishkooda iyo mathskooda iyo scienskooda lacag adagna aynu ka bixinaa laakiin qur'aanka haddii la yidhaahdo intaa barkeed ha laga bixiyo waa maxay culimadan qur'aanka iibsanaysa waa maxay culimadan qur'aanka gadanaysa dood baa laga keenaya laakiin mathska diyaar baynu u nahay in wax walba ku bixino waxaa dhacday dugsiyada waddankeena ka mid ah ayaa waxaa laga dhigay bishii 10 pound magaaladeennan markaasaa waa la qayliyey mise wiigii 10 pound markaa 40 pound wiigii ayaa laga dhigay meelaha ala kulli xaal markii la qayliyey ayaa wadaadkii markaska mas'uulka ka ahaa oo nin aqoonta maadigan aad ugu fiican ahaa ayaa wuxuu sameeyey wuxuu yidhi waxaan furayaa tuition Englishka iyo science-ka carruurta laga caawinayo iyo mathska saacaddii waa 30 pound saacaddii waa 30 pound waa la iswada qoray liisadii markii mala 60 marayso ayuu joojiyey ayuu igumaan tala gelin buu yidhi in aan dhigo English iyo maths iyo science toona laakiin waxaan idinka qaadaya imtixaan in diinta ilaahay ay qalbigiina ku weyn tahay iyo inay maadadu qalbigiina ku weyn tahay marka investmentka ugu qaalisan ee loo baahan carruurta inaynu gelino waa investmentka quraanka iyo diinta waa haddaynu doonayno carruurtan inay inoo badbaadaan lacagta inaynu gelino saynu iyaga diintooda ugu badbaadin lahayn imika waad ogtihiin oo taxadiyaad badan baa jira insha allah markaynu soo gaadhno aynu ka hadli doonaa challenge badan baa jira oo imika inagu aynu ka nahay hogaamiyayaal inkastoo hogaami fiican aanay ahayn midda kale waktiga dhalinyaradu wakti badan bay lumisaa guud ahaanna wakti badan baynu luminaa rag iyo dumarba
raggu inta ay makhaayadaha ku lumiyaan inta ay ku lumiyaan fadhi ku dirirka cadad iyo xisaabtoona male wadaad iyo waran laba makhaayadaas la wada fadhiya markaas maxaa laga hadlayaa farmaajo inta ka dhacay musabixiya inta ka booday hebel kala xagan ka baxay dani baa sidan yeelay ma maqasheen hebelkii kale wuxuu yiri ma maqasheen khayrra waxa laga haayo waxaas uma laga hadlaya meel aanad joogin adigu oo aanad waxaad ka qaban kartaa aanay jirin ayaad maanta dhan ka hadlaysa ood ku xiiqday oo nafti kaaga baxday ood ku kala caroonaysaan oo mararka qaar isku dagaashaan oo rag ay gacan isula tagaan waxaan waxba inoo gidhiish ahayn wax aynu ka faa'iideyna haba yaratay aanay jirin laakiin waxaynu wax ka faa'iideynay ee ahaayeen waqtigeenna wax faa'iido la aynu gelinno inaynaan ka shaqaynin dumarkeenna in badan oo ka midi iyana taleefanka dhegta la haystaa kolley dariiqyada waan ku aragnay gabadh xijaaban oo taleefanku dhegta ugu jiro xijaabka hoostiisa inta halka dhag lagu siiyo maanta dhan hadlaysa inta ay socoto taasina iyana dhaqan fiican maaha mar guryaha la joogana taleefanka in la yareeyo waqtigana caruurta la geliyo ilaahay wuxuu inoo sheegay subxaanahu wa tacaala gaalada iyo intii dariiqa ilaahay ka leexatay inay calaacali doonaan maalinta yowma alqiyaame maxay ka calaacalayaan rabbanaa akhrijna nacmal saalixan khayra aladii kunaa nacmal rabbigayow naga soo saar cadaabta nacmalu saalixan camal wanaagsan oo diinta ilaahay ku toosan oo ilaahay ka raali yahay ayaanu samaysanaynaa jaanis kale ilaahayow nasiibay leeyihiin fursad kale ilaahayow nasiib ilaahay wuxuu leeyahay awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakkar miyaanaan idin siinin wakti iyo jaanis aanaan idin noolaynin wakti aad wax ku qaadan kartaan oo wax ka faa'iidi kartaan miyaanaan idin siinin ood ku baraarugi kartaan wajaaءakum الnadiir ilaah markaa sidii ay geeridu idinku timi markaa lagama aqbalayo waatan anigii idinkaba idinka baqanayo hadda wakti baynu haysanaa jaanis baynu haysanaa waynu caafimaad qabnaa waynu wanaagsannahay haddana waxaad moodaa in aynu waktigii luminayna rag iyo dumarba ubadkeenni ay u ooman yihiin ubadkeennii ay u ooman yihiin ragga qaar habeenii maalin waa la shaqaynayaa intii ka soo dhan waatan makhaayadda la fadhiyo 7 berba waa la shaqaynaya dad rag badan iyo dumar badan baana caruurtooda aan is aqooninba iyaga caruurtooda aan is aqoonin ninba waxa laga hayay wuxuu yiri aaba 8 sano maalin kaliya day of man qaadanin buu yiri 8 sano si aan adiga kuugu sameeyo nolol fiican aaba 8 nolosheeda ka go'an buu yiri waa 8 noloshayda ka go'an waa in caruurta waqti lala qaato in dhalinyarada waqti lala qaato in waalidku ay la saaxiibaan ubadkooda inay ogaadaan ubadkoodu cidda ay raacaan cidda ay saaxiibka la yihiin iyo cidda ay wada sheekaystaan waa muhiim
وقتك إن أدلو إلاليو لأن يردون وقتك أدلو إلاليان بقول لهم يعني يرد وقتك بوس كذا نقول تجينا إلهي سبحانه وتعالى نقول فاهين دونا نبي نوح عليه الصلاة والسلام حديث الترمذي أوريي حسن الصحيح بويلي إمام الترمذي شيخ الألباني نوح وحسن لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل 4 إلهي قفنا هرتيسا كما دقاقيو يسوون 4 سؤالات كتشواب 4 سؤالات محا كميدا سؤاشا عمرقاقي سؤال بلغا ويدينيا محاد سميسي maxaad samaysay haddana su'aal gaara lagaa sii weydiinayaa cimrigii guud oo ku saabsan waqtigii aad dhalinyarada ahayd ee aad xoogga ahayd waa waqtiga qofka dhalinyarada ahi uu xagga kale hadduu dabcan adduunka u rogi karo waayo waqtiga ilaahay wuxuu ku siiyey quwad aan weliga dib dambe ku soo mari doonin lidaalika markaad eegto asxaabtii nabiga calayhi salaatu wassalaam dhalinyaray ahaayeen imika innagu waxaynu u naqaanaa markaad maqasho abubakar cumar cuthmaan cali waxaad sawiranaysaa un oday garcadda ah لكن ويلي dhalinyaro ama sawiranaysid Abu Bakar baa u weynaa imashir baynu malaynaynaa 7 jir buu ku islaamay 7 jir ayuu ku islaamay Abu Bakar Umar ibn al-Khattab 26 jir عثمان بن عفان 20 جر علي بن أبي طالب 11 جر سعد بن أبي وقاص 7 جر أبو عبيدة عامر بن الجراح 20 جر صهيب الرومي 9 جر زيد بن حارثة 20 جر عبد الرحمن بن عوف 30 جر الأرقم بن أبي الأرقم 15 جر بلال بن أبي الرباح 30 جر كورما هذا نمكي صفحات تاريخ ذا بدلي بل يرى هاي ابن عباس يا عبد الله بن عمر كهد لما ينو كهد لما ينو يقول عرور بيهاين إنما كمان كهد لنا سوء إسلامي أين مركا أد مقعود مقشو أتصورنا يسوس أولانا يسوس كانوا أضيق العداء وقركوا عدي هاي هكذا صار لنا يوضا بيهاين هذا أنا ودوكتي صفحات التاريخ يدون كلهم بيبدلين عربي إسلام ككهر وح قيمة أما يلهين وح قيمة هبيراتين ما يلهين labadii xoog adduunka ugu waaweynaa waqtigaa waxay ahaayeen roomaankii iyo bershiyankii labadaasina carab waxba iskagamay tirinaynin bal qabaa'ishoodu way kala qaybsadeen qolnaba dabadhilif kuwanay u ahaayeen qolna kuwanay dabadhilif u ahaayeen iyaguna haba yaatay wax la iskaga tirin jiray may jirin inta inagna Allah ka dhigay
rustum qaa'idkii ciidamada roomaanka markii ay iskaga hor yimaadeen macrakada qaa'idka ciidamadu wuxuu ahaa Sacad ibn Abi Waqaas markaasuu wuxuu ku yiri bal nin ii soo dir aynu wada hadal leh marka saddex nin oo kala duwan buu marba mid u diray marka waxa kamid ah rag u diray Rustum waxa kamid ahaa Ribci ibn Aamir Ribci ibn Aamir waxa lagu sameeyay waxay dadka adduunyada ay ku darandari lahaayeen waxa loo dhigay kaarbad cas waxa loo dhigay arshigi waxa loo keenay Rustum baa la soo dajiyay barkamayn baa la wada ag dhigay waa la qurxiyay waa la sharaxay isna nin adduunyo maaha faraskiisii yaraa ayuu ku soo dulmaray kaarbadkii markaas waxa lagu yiri hubka madaxda loolama gala hubka dhig markaasuu yiri dhigi maayo isaga ii yeedhay anigu uma yeeranin marka ama sidaydu igu aqbali sidaan ahay anoo hubkaygi sita ayuu igu aqbali ama waan iska noqon buu yiri laakiin uu hubkayga dhigaya ma ihi Rustum baa loo sheegay ninkii saasuu yiri baa la yiri soo daayay buu isagii hubkiisa warankiisii yaraa ayuu ku soo tukubayay oo sida ugu muday kaarbadkii casaa oo dan kala hayn markaasuu faraskiisii yaraana uu ku xidhay barkimooyinkii la dhigay mid kamid ku xidhay marka Rustum wuxuu rabaa inuu ogaado nimankan maxaa ka keenay dhulkoodii ma gaaja keentay ma waxay cunaan bay rabaan ma baahi ba haysa waxa soo qixiyay buu rabaa inuu ogaado markaasuu wuxuu ku yiri war maxaa idin keenay maxaa rabtaan markaasuu wuxuu yiri waxaan doonaynaa in aanu dadka ka xoreyno inay is adoonsadaan ciriiriga adduunyada aanu ka saaro oo ciriiriga on adduunyada waasica ah aanu u saaro oo aanu ka kaxayno dulmiga diinaha oo u kaxayno cadaaladda islaamka ayaan u soconaa buu dadkuna ilaahay kaliya ay adooma u noqdaan dadkan is adoonsanaya waxaan ku xoreyno is adoonsigan oo ay ilaahay dadku adooma u wada noqdaan markaasuu wuxuu yiri markaasuu fahmay wuxuu yimi maasirka u yimi waxa la doonayaa inuu qofku inuu noqdo qof casiis ah oo inankeena dhalinyarada ah in lagu beero inuu isagu sareeyo maadaama ilaahay uu caabuday subxaanahu wa ta'aala maadaama adoon ilaahay uu yahay inuu isagu sareeyo laakiin aanu isu arkin inan yar oo Soomaaliya oo rifijiya oo madow oo wax uu haba yaraatay qaban kara aanay jirin